deeqdan dawada iyo gaariga ambalaasta ayaa mid loogu talagalay in lagula tacaalo bukaanada jiifa isbitaalka Madiina iyo qaybta gargaarka degdega ayaa waxaa lagu wareejiyay maamulka isbitaalka Madiina. Deeqdan ayaa waxaa isbitaalka gaarsiiyay hay'adda One Life ee ka shaqeysa arrimaha bini'aadanimada ee fadhigeedu yahay waddanka Ingiriiska, waxayna u soo wakiisheen hay'adda DAV ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha hay'adda DAV ee ka shaqeysa arrimaha bini'aadanimada iyo gargaarka dadka naafada Abikar Xuseen Bashiir ayaa warbaahinta ugu warbixiyay deeqdan daawada ay maanta gaarsiin isbitaalka Madiina. waxaan maanta isbitaalka Madiina soo gaarsiinay ambulance loogu talagalay in isbitaalka loogu adeego iyo daawo ka timid wadanka UK Manchester oo ay soo dhiibtay hay'adda One Life Global Welfare Charity. waxaana ku wareejinaynaa agaasimaha isbitaal Madiina agaasimaha Maxamed Yuusuf. sidoo kale waxaa xusid mudan in ay nala joogaan wakiil ka socda wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee dawladda federaalka Soomaaliya oo runtii ahayd wasaaraddii noo sameysay canshuur dhaafta alaabtan lagu soo saaray maantana goobjoog ka ah in maxaan ku dhahaa aan ku wareejinayno isbitaal Madiina sidii aan horeyba u ballan qaadnay kuna xusnay waraaqihii maxaan ku dhahaa wasaaradda geenay in alaabtani ay tahay alaab mucaawina isla markaana loogu talagalay isbitaal Madiina. agaasimaha guud ee isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf Xasan oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo mas'uuliyiinta hay'adda ee deeqdan soo gaarsiiyay isla markaana sheegay in sidii loogu talagalay ay ugu adeegi doonaan bulshada Soomaaliyeed. aad bay u mahadsan yihiin tii u horeysay ma ahan ambulance kale oo dhinacan yaallo ay kol hore noo soo gudbiyeen oo aad iyo aad yacni u nacfi badan oo wanaagsan kuwa kalena waa idin keenaynaa ay yiraahdeen. waxaa kaloo goobtan nala jooga oo u mahadcelinaynaa wasaaradda yacni gargaarka iyo maareynta arrimaha degdegta ah oo ka qayb qaadatay canshuur dhaafta ambulanska iyo qalabada kaleetooda naloo keenayay. ilaahay mahadha ka gaarsiiyo. waxaan annagana waajibkeenna aan ka gudanaynaa alaabtaasitood iyo daawooyinkaasito naloo keenay sida loogu talagalay iyo hadafka laga lahay sida ay ahayd inaan u isticmaalno. wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa gacan ka geystay deeqdan si loo gaarsiiyo isbitaalka Madiina si wax loogu qabto dadka dhibaataysan ee xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo gudaha isbitaalka. Cabdullaahi Axmed Kulmiye, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.